إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته وها بار لحدي مقرب نمكو جيريودي مقالة بورما إبراهيم عبد الشكور إبراهيم وها أرد دكتور جامعة عمود جارهان فاكولتي إنجينيرين كدب مركي حبتك فكتمت كمذا إلى لدى جامعة عمود وحنا شير شرايد أو قبتين مسؤولين جامعة عمود يولي أمام القبل كاود لو تعسيدين قويسكي قرابدي أهلكي وكبحي أرد يقاسي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء فعل إلهي بس دون يا لبا كور مغرب كيا وحنا عسكرية حبتك كذا إبراهيم عبد الشكور إبراهيم وحنا لنا قويسكي قرابدي الكيبة سمري من الله ينقود السيو وينقود البحي أرض مستقبل كيس تسوي في أبو هذا سنة كلامات إنجنير كجلس داو نور شيء بروفيسور كو إن وحنا كحنا شيل كارد عياد بانو كحنا هاي قبلهان يتشام على هان باو نقطع سنينا إن كاس جيريودي يا سكرجة حبضو كقدر عذيبا لابد واحد كودي مدين برج السنة وحنا لنا هاي لما تود بقى لا يستمر هاي النقصيو شيل كاس صدور العي بليس كقعنتو كهيا عسكري بيلو سبوها بعدين بوكشرا السجن كل جوان كيس بليس كأنه كسوجنا إنا لله وإنا إليه راجعون وحضرنا تعسي تيراين له وكل عضي إبراهيم عبد الشكور إبراهيم أو أها أرضي كشري جامعة عمود سنة كل بعد قيبت إنجنيرين كا رصاص كذا قرحة أرض عسكري كم ده وردياشي جامعة وان كحنا هاي وحنا تعسيين إن قيس كيسي قرابديسي أهل كيسي degmada Boorama oo ay 5 sano ugu dambeeyay deganay jaamacada Amuud iyo qaraabadiisa iyo gobolka iyo Soomaaliland baan ka tacsiyeynaa mar walba shilalku way dhacayaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun askarigii gacanta geystayna wuu xiran yahay baaristiina way socotaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi u diraynaa qoyskii uu ka geeriyooday Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim oo ahaa arday sanadka labaad ee kulliyadda injineerinka jaamacadda Amuud ardaygaas oo ay rasaas ka timid nin booliis ay gaadhay arrintiina booliiska ayaa gacanta ku haya oo baaritaankeedii ninkii shilka geystayna uu xiran yahay booliiska ahaa ardaygana saas ku geeriyooday waxaan aad iyo aad uga xunnahay gobol ahaan jaamacad ahaan iyo Soomaaliland ahaanba ardayga geeriyooday oo ka ku dhuftay isagu ay ka wada yimaadeen bariga sanaag aad iyo aad waan ka xunnahay ardaygaygii buu ahaa inankayagii buu ahaa kalnada qaranka uu shaqeeyo booliis qaranka uu shaqeeyo ahaa labadaba waa bahdiin xaggana waa isku bahun xaggana waa isku bahun bay haayeen sidaa daraadeed ayaanu eheladii iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo qaraabadoodii ayaan tacsi u direena annagoo ka xun tiraanyaysan inankaas oo sanadka labaad ah mustaqbal fiican runtii laha haddana ilaahay inama weydiiyo ciduu qaadayo isagun baa u taliyo fiisihi baa u yimid fiisihi ilaahay oo horjoogsi lahayn ayaa u yimiday marka mar labaad iyo mar saddexaad annaga oo jaamacadii mathalayna madaxdii kale la socoto madaxdii qarankan aan halkan la joogay kuwa gobolka iyo odayaashiiba ayaan tacsi weyn oo kashkiya laabta ka soo go'day ayaan u diraynaa lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxa isugu nimidnay marxuumka dhintay Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim ilaahay naxariista siiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo walaalihiina ilaahay samir iyo iimaan jamiil ha siiyo allah u naxariisto waxba sidii haddii la rado muxuu ku dhacay lama yiraahdee maxay ku qabowdaayo maxay ku dawowdaan baa la yiraahdaa marxuumka ninkii gacantu kaga dhacday wuu xiran yahay waa booliiskaana gacanta ku haya iyo xukuumadda iyada haddii la dhaahdo haysa waa siday ahaan jirtay dhammaan tarakadii iyo ehelkii uu ka tegey iyo jaamacadihii iyo dhammaan ummadda waxaan leenahay sabir iyo Allah ka siiyo gaar ahaan waalidiintiisii iyo walaalihii iyo sabir iyo Allah ka siiyo waxa isku kaaya keenay inteedaasina waad garanaysaano waxa weeye waa damqasho haddii gobolkan ay mid gobolkan ay ku dhici lahayd ama mid gobolladan kale reer Soomaaliland ku dhici lahayd inteedaas iskuma nimaadeen intayadaas maanta iskuma nimaadeen laakiin waxa isku ay keenay
cid kasta ya meel shafog u ka yimid baa isku haganta Abshakur Maxamed Ali 5 TV Boorama